loo ogaado qofka ku jecel aan ku sheeganin iyadoo ay ugu wacan tahay cadaadiska bulshada iyo sababo kala badan waxa laga yaabaa inuu qofku jeclaado balse aanu weligii ku sheegan inuu dareen ku hayo inta waxa dheer mararka qaar waxa laga yaabaa in qof aanad gabi ahaanba garanaynin uu ku arkay inaad qof soo jiidasho la tahay balse haddana maadaama aanu ku soo dhex gali karin wax fursad u heli maayo inuu ku dareensiiyay inuu ka helay warka fiican ee aan ku hayaa wuxuu yahay in dadkaas ay haddana weli ku tusi karaan inay ka heleen iyagoo laftarkooda ogaanayn inaad ogtahay maskaxda qofku waxay soo diri doontaa calaamado badan oo muujinaya inuu qofkaasi ka helay xataa haddii uu isagu si xoogan iskugu dayayo inuu qariyo xiisaha uu ku qabo adoo calaamadaha qofka ka baaraya waxaad ogaan doontaa qofka ka helay ee ku jecel een haddana ku sheeganin calaamadaha lagu ogaado qofka ku jecel aan ku sheeganin waxaa jira calaamado badan oo ku tusi kara in qof ka helay iyo in kale calaamadaha badan ee aad qofka ku aragtaa waxay muujinayaan in qofkaasi ku jecel yahay calaamadaha qaar ka mid ahina waa kuwan waxa tahay qofka kaliya ee u sheegay arintan mid ka mid ah calaamadaha ugu waaweyn ee aad ku ogaan karto inuu qofku jecel yahay iyo in kale waa isagoo qofku ku sheega waxaanu dadka kale u sheegin ama aanu ku aaminin marka uu qof ku sheego sir aanu kuugu daray inaad tahay dadka tirada yar ee uu sheegay macnaheedu waxay tahay oo kaliya in qofkaasi ku sheegay inaad tahay qof agtiisa ku qaaliya aanad ka mid tahay dadka tirada yar ee og sirihiisa qotada dheer marka xigta ee uu qof ku sheego inaad tahay qofka kaliya ee arinta og maskaxdaada gali suurtagalnimo ah in qofkaasi ku jecel yahay haddii aad calaamado kale ku aragtana ogow in qofkaasi ku jecel yahay laba istusnimo dadku way neceb yihiin dadka istusiinta ah mararka qaarna waxay aaminaan inay isla weyn yihiin balse xaqiiq ahaan dadka istusiinta ahi waxay istusaan oo kaliya dadka ay u tixgeliyaan inay muhiim yihiin haddii aan si kale u dhigno haddii uu qofku jecel yahay waxaad ka dareemi doontaa istusnimo badan wuxuu kaaga warrami doonaa guulihiisa wuxuuna kuu soo bandhigi doonaa tayooyinkiisa fiican saddex qofkoon kaa caajisin haddii uu qofku jecel yahay weligii kaa caajisi maayo kaamina tegi doono ilaa ay qasab ku tahay mooyaane dhinaca kale haddii aanu qofku jeclayn waxaa laga yaabaa inuu bilaabo inuu kaa caajiso haddii aad wada fadhiideen waqti dheer qofka ku jeceli wuxuu badanaa heli doonaa cudurdaar uu wax badan kugula sii joogo halka qofka aan ku jeclayn uu badanaa heli doono cudurdaar uu kaaga tago mid ka mid ah calaamadaha badanaa ka caawin kara inuu qof ka helay waa damaca uu qofkaasi wax badan kugula sii joogayo afar qofkoo magacaaga kuugu yeedhaa inta ugu badan haddii uu qofku jecel yahay wuxuu badanaa isticmaali doonaa magacaaga in ka badan inta dadka kale kuugu yeedhaan sababtuna waxay tahay qofka ku jecel wuxuu qarsanayaa dareenno badan oo aanu dibadda u soo saari karin mid ka mid ah waxyaabaha qofka ka caawinaya inuu dareennada dibadda iskaga soo saaraana waa isagoo badanaa magacaaga ku dhawaaqa shan qofka ku qabta hawlo adag oo waqti qaadanaya haddii uu qofku jecel yahay wax dhib u arki maayo inuu ku qabto hawlo waqti dheer qaadanaya xataa haddii waqtiga uu haysta uu kooban yahay ama xataa haddii hawshaasi ku adag tahay mararka qaar inaad qof si toos